xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa magaalada Hargeysa waxa ay ku qabteen kulan aqoon-yahanada iyo dhalinyarada ee guul iyo guubaabo. warkaasi waxa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Cabdiftaax Ismaan Cali. xisbiga wadani ayaa xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo qabta dhalinyarada kulan magaalada Hargeysa. sidoo kalena dhalinyaradaasi ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana xafladaasi kala soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreeya xisbigaasi oo hogaaminayo musharaxa madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay hoggaanka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani. inaanu maanta xisbiga iyadoo mucaarid yahay talada ugu badan aad u leedahay xisbiga wadani waxaan oran karaynaa waa warshada ama akaademiyada soo saaraysa hogaamiyayaashii hadan lahaa hoggaanka dalka mustaqbalka guul iyo guubaabo. guushii oo ay ka hadhan tahay 28 tallaabo iyo guubaabadii ugu dambaysay oo uu jeedinayo musharaxa xisbiga isagoo fariintii ugu dambaysayna fadhiga taasi oo ah barnaamij siyaasadeed xisbigu u talagalay iyo waxqabadka mustaqbalka xisbigu iyo xukuumaddiisu ay dhalinyarada ka beddelayso baylaha iyo qabyooyinka jiraba. taasuu guddoomiyuhu maanta u jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliland. mas'uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. ugu dambeyntiina waxa xafladda soo gabagabeeyay musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Cumar Carte ereygii guushaba keenay soo garan maysaan. wuxuu yidhi isagoo u nasteexaynaya shacbiga, isagoo u nasteexaynaya ciidamada, war sheekadii way dhammaatay, ciidamadu ha isdhiibaan, shacbigu ha isdhiibo, meelaha SNM ugu dhow nin walba ha iska xaadiriyo. waxaan leeyahay maanta war sheekadii way dhammaatay, kulmiyow war isdhiiba. dhalinyarada reer Soomaaliland ee maanta garatay xisbiga guusha wataa inuu yahay wadani, inay tahay rajadii shacabka, inay tahay dhalinyaradu, inay tahay khayraadkii ummadu lahayd, inay rajadii shacabka tahay ayuu arkaa. waxaan diidaynaa madaxda halkaa ka muuqata xoogga dhalinyarada iyo barnaamijka xisbiga iyo xisbiga wadani. walaalayaal, waa xaqiiqa xisbiga wadani inuu si weyn u aaminsan yahay in khayraadka ugu badan ee dal kastaa leeyahay ay tahay dadkiisa, gaar ahaan dhallinyarada oo Soomaalida lagu qiyaaso in 70% ka badan ay yihiin dhalinyaro. dhalintaasi waa xoog iyo maskax cusub oo dalka dhisi kara, lana jaan qaadi kara dhigooda caalamka. xafladan ayaa dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa u muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani. ugu dambeyntiina xafladan ayaa ku soo gabagabowday jawi farxadeed. Cabdiftaax Ismaan, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.